maayarka degmada Laascaanood iyo waliba xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood ayaa saaka si wada jir ugu wareejiyay garoonka kubadda kolayga ee magaalada Laascaanood wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sool. munaasabad kooban oo lagu qabtay wareejintaasi ayaa waxa ka hadlay madaxda iyo mas'uuliyiinta sportska ee gobolka Sool iyo waliba xogayaha fulinta dawladda hoose. maayarka degmada Laascaanood xogayaha degmada Laascaanood oo markasta u dhagan nugul wax kasta oo dhalinyarada iyo gobolka lagu horumarinayo. markaan arinta la nimeeyay mar hore baa hadin inoo timaado waxaan kale mahad celinayaa isduwaha wasaaradda Fuad oo runtii isku hawlay in garoonkan gacanteena ku soo noqdo qurba joogti iyo dadkaan isgaranaynay halkan iga maqlay waxaan leeyahay tii wax badan lagu wareegsan garoonkii uu xidhan yahay maanta bal furiga gacanteena ku soo wareegay bal waxay haysan soo daayay orantii bartamaha magaalada Laascaanood garoonkii basketka runtii markii ugu horeysay muddo dheer kadib gacanta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ku soo wareegay waxaan uga mahadnaqayaa maayarka degmada Laascaanood iyo xoghayaha degmada Laascaanood oo runtii iyo xildhibaanada kale runtii aad ka uga shaqeeyay markastana u heelan sidii degmadani ay horumar lahayd. sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha markii uu soo magacaabay waxyaabihii ugu horeysay aanu ka wada hadal waxa kamid ahaa garoonkii basketka in dib loo soo nooleeyo oo dib ciyaarihii loogu qabto. tartamada gobolada waadaweeyna barigii dhaweyd Laascaanood kuma aysan jirin إن شاء الله تعالى أنا لك عشان يا معلمين تقبل كمعلم برعي أورنتي شهادات بدنا هو هيستا هير عالمنا كجار باسكت يقرب تشوك تأكل تهاي مرة سعاد يدك كلا بيجان كان أودا شيء بنينا يبلك دبدي سكون مقبّا سيدي بالله هرب بالله قادم إن شاء الله ترتمنا صوص على إن أنا كحول الدوام حول رياض Laascaanood runtii garoonkan ku tababarta garoonki ka wasaaradahan oo ka hawlgalnay aniga iyo maayarku waxaan halkan u nimi inaan gacanta ka saaro baasketka oo dhowr iyo 20 sano xidhnaa oo hore dhowr iyo 10 sano ka hor baan marka wareejinay dad shacab oo haystay waaga dhaawacyo aaba iga soo gaaray oo maayarka ka warramayo ogaay qoobay qaadaba joogay maanta waxaan nasiib wanaag noo amar labaad inaanu isu duwihii sportiga Fuad Ahmed Ali Haybe iyo macallimiinta labada coach inaan maanta gacanta ama furaha gacantooda gelino wada shaqeyn wacan. gabagabadiina maayarka degmada Laascaanood ayaa sheegay in garoonkan uu yahay garoon ay baahi ballaaran u qabaan dhalinyarta sportska ee gobolka Sool. kubadda basketka oo ku yaala bartamaha magaalada Laascaanood dadkuna ay aad u wada garanayaan maanta garoonka oo muddo xidhnaa dhowr iyo 20 sano furayaashiisa waxaan ku wareejinaynaa isduwaha ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Sool Fuad Ahmed Ali Haybe iyo ragii way arag ahay kubadda arkaysan hadduu ahaan lahaa Asbaro hadduu noqon lahaa Burci hadduu noqon lahaa Mr Buraawo ragga ciyaaraha fudud ugu bilisnaa wuxuu ahaa waayay bariisamaadkii waayo iyagana waxaan ka rajaynaynaa garoonkii in dhalinyaradii hadday tahay balwad hadday tahay muxuu ahaa tahriib in garoonkii ka ilaaliyo garoonkiina haddii lahaydmo dhammaanteed wuu sugaya qurba joog dadka dacwada dunida iga daawanaya waxa laga yaabaa qaar badan inay halkan ku ciyaari jireen kubaddii yareed muxuu ahaa sharabaad ka samaysnayd inay ku ciyaari jireen waa laga yaabaa oo maanta garoonkeeni inagu buu sugaya. Barkad Umar Ahmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.